Bismillahirrahmanirrahiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono Somaliland oo Mareykanka siinaysa dekad iyo saldhig si ay aqoonsi u hesho arrintan muuhir geli karta maxay uga dhigan tahay dowladda federaalka Soomaaliya halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbin doona warbixintan ayaan idinku soo gudbin doona umur arrintaasi ku aadan hayeeshee intaan guda gelin waxaan ka codsanayaa muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saariyay channelka u furan ee gambaraalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena Somaliland oo Mareykanka u yabooday laba waxyaabood si ay uga bedelato aqoonsi Somaliland ayaa militariga Mareykanka u yabooday dekad iyo ground diyaaradeed oo ku yaala marin badeed muhiim ah ayada oo uga bedelanaysa talaabooyin ku wajahan in loo aqoonsado dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale isaga oo rajaynaya in uu ka faa'iideysto walaaca sii kordhaya oo Mareykanka uu ka qabo isballaarinta Shiinaha ee Afrika ayaa madaxweynaha Somaliland wuxuu qorsheenayaa in uu bisha Maaj booqdo Washington halkaasi oo la filayo in uu ku saamiyo xiisadaha Mareykanka ee ku aadan isticmaalka xarumo ku yaala magaalada Berbera waxay ku taalaa gacanka cadan oo ah marin muhiim ah oo xiriiriya badweynta Hindiya marin biyoodka Suez iyo sidoo kale badda Mediterranean-ka madaxweynaha wuu soo dhaweyn lahaa joogitaanka Mareykanka iyo in uu ilaaliyo marin biyoodyadan waxaa sidaas yiri wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Ciise Kayd oo raiis iyo wargeyska Wall Street Journal ee Mareykanka laga leeyahay Mareykanka waa in ay si degdeg ah falcelin u sameeyaan ayuu yiri Somaliland ayaa muddo 30 sano awooday oo ay ku raadinayso aqoonsi caalami ah hase yeeshee dadaalkan cusub ayaa imaanaya xilli ay haysato fursad weyn waxaa jira niyad jab ay Washington ka qabto dowladda federaalka ee Muqdisho oo dhowr jeer dib u dhigtay doorashooyinka isla markaana ku lug yeelatay khilaafyo siyaasadeed oo dhexdeeda ah taasi oo dhalisay guul daro ku aadan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab niyad jabka laga qaadayo dowladda federaalka oo ay weheliyaan walaacyada ka dhashay dagaalka dalka diriska ah ee Ethiopia iyo afgambiga militariga ee Suudaan ayaa dhaliyay in Congress-ka Mareykanka uu dabacsanaan u muujiyo Somaliland oo ku guuleysatay doorashooyin dimuqraadi ah iyo nabad xasilooni darada sii socota ee geeska Afrika iyo tartanka caalamiga ah ee loogu jiro kheyraadka iyo saameynta ayaa ka dhigaya muhiim inaan la shaqeyno saaxiibada nagu aragtida ah ee gobolka sida Somaliland oo ay ka go'an tahay nabad dimuqraadiyad iyo barwaaqo waxaa sidaas yiri Senator Jim Risch oo kamid ah xubnaha ugu sareeya xisbiga Jamhuuriga ee ku jira guddiga siyaasadda arrimaha dibadda ee aqalka sanadka si kastaba ha ahaatee maamulka Biden ayaa ku adkeysanaya siyaasadda Mareykanka ah in Soomaaliya ay tahay hal dal oo Somaliland ay ku jirto sidoo kale dawlado badan oo Afrikaan ah ayaa aqoonsi ay hesho Somaliland u arka in ay dhiirigeli karto in ay ayagana wajahaan gooni u gooso dalalkooda ka dilaaca iyada oo ay sidaas jirto ayaa haddana diblomaasiyiinta Mareykanka aysan qarin sida ay uga niyad jabsan yihiin madaxweynaha Soomaaliya ee madaxweynaadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo marar badan dib u dhigay doorashada iskula dayay muddo kororsi sanadkii 2017 Shiinaha ayaa saldhig military ka sameystay dalka Djibouti oo ku dhagan Somaliland meel u dhow marinka Bab al-Mandab oo isku xira badda cas iyo gacanka cadan inkasta oo Djibouti aysan muujin in ay sidaasi doonayso haddana waqti kasta ay xiri kartaa saldhigga Mareykanka ee dalkaas taasi oo militariga Mareykanka ku qasbi karta in ay raadiyaan mid cusub Somaliland ayaa u aragta loolanka quwadaha adduunku in uu markaasi u furayo albaab ay ku xaqiijiso aqoonsi caalami ah haddii Shiinaha ay awood ku qabsadaan dalkeena ama siyaabo kale markaas Mareykanka oo idil ayaa maamuli doona ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Ciise Kayd bishii Agoosto 2021 diyaarad military oo Mareykanka ayaa caga dhigatay garoonka Berbera halkaasi oo saraakiil Mareykan ah ay qiimeyn ku sameeyeen dekadda iyo sidoo kale garoonka militariga Mareykanka waxay hadda haystaan Djibouti balse waxay markaasi u baahan yihiin qorshe labaad plan B isla markaana Somaliland waxay noqon kartaa midkaas waxaa sidaas yiri Tiber Negi oo ahaa kaaliyihii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika
ee maamulkii Trump. bishii November Ciise Keyd oo muwaadin Mareykan ah ayaa booqday Washington si uu olole uga sameeyo Kongareeska Mareykanka. bishii ku xigtay ee December kaaliyaal sare oo ka tirsan Kongareeska ayaa booqday Berbera iyo sidoo kaleba Hargeysa. mas'uuliyiinta Somaliland ayaa qirsan in aysan u muuqan in ay degdeg u heli karaan aqoonsi, balse waxay raadinayaan in ay xulufo la noqdaan Washington kuna guuleystaan tallaabooyin ay xiriir toos ah kula yeelanayaan. aqoonsi beddelkiisa hadafkeena ugu weyn waa wada shaqayn, ayuu yidhi Ciise Keyd. sanadkii tegay Senator Risch oo laga soo doortay gobolka Idaho ayaa qoray sharci ku qasbaya Pentagonka in uu wada shaqayn military la yeesho Somaliland ayada oo la dhinac marayo dowladda federaalka ee Soomaaliya. sharcigaas ayaa ka gudbi waayay aqalka sanadka, balse Risch wuxuu doonayaa in uu mar kale dib u soo nooleeyo wada xaajoodka Somaliland. markaana daawadayaal haddaan eegno baarlamaanka UK iyo sidoo kaleba damaciisa ku aadan Somaliland maxay ka yiraahdeen aqoonsiga Somaliland. baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa dood dheer ka yeeshay arrinta aqoonsiga Somaliland. dooda oo ahayd mid dhinacyo badan ay xildhibaanada iska taageen qadiyadda Somaliland iyo sida ay dowladda UK ka yeelayso ayaa socotay muddo ka badan hal saac. xildhibaanada ayaa intooda badan la dhacsanaa dooda uu soo bandhigay xildhibaan Gavin Williamson oo ah xildhibaankii aqalka hor keenay mooshinka ka doodidda aqoonsiga Somaliland. Gavin ayaa waxa uu baarlamaanka sharaxaad dheer ka siiyay horumarka ay Somaliland ku tallaabsatay dhinacyada amniga iyo dimuqraadiyadda, isagoo arrimo badan u soo daliishaday sababta uu u doonayo in ay UK u aqoonsato Somaliland dal madax bannaan. xildhibaan Gavin oo dooda u soo bandhigaya xubnaha aqalka baarlamaanka ayaa sheegay in la joogo xilligii ay UK aqoonsan lahayd Somaliland. xildhibaanka ayaa intaa ku daray in xaqiiqada aan la iska indhatirin, isla markaana aysan dowladda Britain ku qaadan muddo dheer oo kale in ay sugto aqoonsiga Somaliland. runtii haddaynu nahay siyaasiyiinta golahan waxaan u baahannahay inaan arrintan hogaamin markaasi ka muujinaa. waxaan u baahannahay saaxiibadeen Somaliland inaan u muujino inaan diyaar u nahay inaan difaacno sida ay iyaguba noo difaaceen. marka xitaa haddii aanu ka soo bixi karin dhammaan ballanqaadyada ceenkaas ah, waxaanu jecelnahay in aanu niraahno xataa haddii aynaan odhan karin Somaliland ayaa iminka aqoonsanaynaa. waxaan u baahannahay inaan fadhiisanno oo aan ka tashanno sidii tallaabooyinka xiga aan u sii aanbaqaadi lahayn, ayuu yidhi Mr. Gavin. Mr. Gavin ayaa intaa ku daray in aysan habbooneyn in dowladda UK ay sugto 30 sano oo kale, isla markaana la joogo xilligii xaqiiqooyinka la wajihi lahaa. ma doonayno inaan sugno 30 sano oo kale xaqiiqooyinka jira markaan eegno si loo helo jiritaanka Somaliland madax bannaan, sababtoo ah ma aha oo keliya inaan ka sugno qofka xafiiska arrimaha dibadda jooga, waa inaan xaqiiqooyinkaasi ka jawaabnaa. waxaan u baahannahay inaan hogaamino siyaasaddeena arrimaha dibadda. waxaan u baahannahay saaxiibadeena Somaliland inaan u muujino inaan iyaga u guntannahay garabna aan u nahay, ayuu intaasi ku sii daray xildhibaanka. xildhibaan Kerry McCarthy oo ka mid ahayd markaasi xildhibaanadii doodaasi ka qaybgalayay ayaa dhankeeda sheegtay in Somaliland ay horumar badan samaysay, isla markaana ay muujiyeen karti ay dal madax bannaan ku dhisi karaan, lana joogo xilligii dal madax bannaan loo aqoonsan lahaa. waxaan arkaynaa sanadkii aanu soo dhaafnay Somaliland oo u dabaaldegaysa 30 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay gooni isutaagga ku dhawaaqeen. waxay dhiseen dowladooda madaxa bannaan, lacaga u gooni ah iyo qabashada doorasho dimuqraadiyad ku dhisan. waxay muujiyeen awoodooda ay u leeyihiin in ay dal dhisaan. soo lama joogo xilligii dowladda UK ee aqoonsan lahayd xaqa ay u leeyihiin in ay aayahooda ka tashadaan, isla markaana la aqoonsan lahaa baahida ay u qabaan in ay noqdaan dal madax bannaan, ayay tiri Mr. Kerry. wasiiro markaasi dowladaha UK u qaabilsan Yurub oo dhanka dowladda u hadlayay, isla markaana ku sugnaa aqalka Mareykanka, ayaa dhankiisa su'aalo laga weydiiyay mowqifka dowladda ay ku wajahan Somaliland. Joris Hayton Harris ayaa sheegay in mowqifka UK uu yahay in ay dhiirigelinayaan in qadiyadda Somaliland ay ka wada hadlaan. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media. haddii aad daawatay like inoo saar, subscribe inoo saar channelka faraga balaalkaasi durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo warbixintan mid laacayna inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo. ana sii wadaynaa inaan sidaas sameeyno, ayuu yiri Mr. Harris.
dhanka kale Vicky Ford oo ah wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Ingiriiska ayaa iyaduna ka hadashay doodda aqoonsiga Somaliland waxayna sheegtay in mowqifka UK ee ku wajahan uu yahay mid cad isla markaana ee dowladda federaalka iyo Somaliland guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media haddii aad daawatay like inoo saar subscribe inoo saar channelka faraga maralka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo warbixintan mid la cayna inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.